بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معنا مناسبة داوليال بسم الله برنامج يعني سيرة توسع وبحث جري كان كنا مع قرقاب كان كنا ما توحنا كجاه لدونا برنامج يعني سيرة توسع إن ترد أسرنا سيابها هو وين رشا داوليال برنامج وحلوس السيا أنا قلنا مع عبد الله قرقابة بروح ما تكاه لدونا سيابها هو وين رشا noloshu waxay u baahan tahay siyaabo fara badan oo qofka bilaan uu guuleysan karo siyaabihiisa ugu baahan ama si ugu waaweyn noloshiisa laakiin haddii aad aaminsan tahay in noloshaada wax badan ka bedeli karto adiga ayay ku wanaagsan tahay mar waliba isku day mar waliba in la noqon doonto qof Allah mar waliba uu raali ka noqdo maxaa yeelay noloshaadu waxay u baahan tahay markasta inaad dadaal fara badan aad adiga samayso maxaa yeelay noloshu waxay u baahan tahay siyaabo fara badan oo looga gudbi karo siyaabaha ugu waaweyn oo nolosha daawade mar waliba haddii aad u baahan tahay inaad noloshaada aad ka faala qaado waxyaabaha ugu muhiimsan ee noloshaada laakiin mar waliba haddii qalbigaagu yahay qalbi dhaawacsan oo markasta noloshaada dhibaato fara badan ku keeni kara waxyaabaha aan ku wanaagsan adiga waxa laga yaabaa inaad ka dhici doonto siyaabo fara badan oo noloshaada aan ku wanaagsan markasta isku day inaad fahmi karto waxyaabaha ugu waaweyn ee ku wanaagsan adiga maxaa yeelay Allah mar waliba waxa uu jecel yahay qofka markasta noloshiisa isku daya inuu mar waliba Allah subhanahu wa ta'ala uu raali ka noqdo haddaba haddii markasta aad tahay qof mar waliba doonaya inuu noloshiisa ka bedelo siyaabo fara badan oo adiga ku wanaagsan waxa laga yaabaa inaad wax badan oo adiga ku wanaagsan aad sixi karto inta noloshaada ka dhiman daawade mar waliba isku day inaad fahmi karto waxyaabo fara badan oo aad ku gaarayso adiga maxaa yeelay noloshaadu waxay u baahan tahay inaad mar waliba isku daydo inaad fahamto waxa adiga ku wanaagsan isku day inaad mar waliba noqoto qof wanaagsan maxaa yeelay noloshaada waxay u baahan tahay inaad markasta aad isku dhiirigeliso waxa adiga ku wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معنا مناسبة داوديال مركز أنا قد داونسان وقيبتي لبعض برنامجيني لما قاعد بحاول يرجعين تنرشة برنامج سوان لسه سيو أنا قلنا معنا عبد الله قرقابة وحنا ما تك قاعد دونا موضوعنا لبعض برنامجينا سيابها هو وين تذكر أمسن شعارك تذكر أمسن وحوي هاي شعار شعارك وحوي قبل سما لبس سيابات هدي ما تعرفوا شرحه سيابها هو وين شعارك لو شرحك dad waxay aaminsan yihiin jacaylka laba siyaabood ayuu aaminsanaadaan iyagu tusaale ahaan wiil iyo gabadh is jeclaanaya oo wax micna aanay isku jeclaanayn balse aan wanaagsaneyn siyaabaha ay isku jeclaanayaan inuu yahay wax wanaagsan laakiin haddii mar waliba aad tahay qof mar waliba dhibaato u geysanaya qofka kale maxaa yeelay jacaylku waxa uu qaybsamaa laba siyaabood oo ugu waaweyn noloshaada koobaad waxa weeye inaad markasta adigu aad isku dareero naftaada aad kalsooni ku qabto horumar ka gaari karto naftaada inaad isku dayi karto inaad horumar fara badan oo noloshaada aad gaari karto markasta iyo goob kasta laakiin haddii aad aaminsan tahay inaad tahay qof mar waliba dhibana ah oo doonaya inuu jacayl beena ku abuuro qofna jacayl beena cidnaba ha ku beerin maxaa yeelay qofkaasi ma awoodo inuu ku beero jacaylka beenta ee adigu aad wado adigaagana daawanaya waxa laga yaabaa inaad siyaabo fara badan aad noloshaada uga gudbi karto caqabad kasta oo timaada haddii aad ka gudbi karto laakiin caqabadaha laga gudbaya noloshaada waa laba siyaabood oo ugu waaweyn ta koowaad waa mar waliba oo Allah subhanahu wa ta'ala aad raali u ka noqdo talabaad oo ah inaad markasta isku daydo inaad adigu aad noloshaada aad muhiimadeeda aad saarto iskuna daydo inaad fahmi karto wax badan oo adiga ku wanaagsan laakiin dad badan baa ka xaqin tiraysa hadal markasta isku daydo inaad halka armaanta taagantay aad ka fikirto dadku waxay yiraahdaan ama base dadkii hore waxay yaqaaneen in dadka ay ku jeclaan jireen laba siyaabood oo ugu waaweyn oo ah in ay dadku ay hore isku jeclaan jireen siyaabo waaweyn oo ah qofka wala jeclaanaya siyaabaha lagu jeclaanayo maxaawiya balse maxaad ku jeclaanaysaa laakiin haddii aad aaminsan tahay inaad qof jacayl beena aad ku abuurayso weligaa halkaas baad taagnaanaysaa laakiin you are right markasta aduunba iftiimaya haddii aad isku daydo
in aad qofkaasi aad isku daydo mar waliba inaad raali geliso maxaa yeelay raali geliyaasha qofka aad jeceshahay raali gelinaysa waa mid adiga ku wanaagsan laakiin qof adiga ku jecel hadduu uu dhibaato ku geysto waxaa laga yaabaa inuu maalin maalmaha ka mid ah uu ka qoomameeyo jacaylkaas uu kuga abuuray daawadayaal barnaamijyadeena waxaanu si maalin walba aynu kaga hadalnaa dhiirigelinta nolosha iyo siyaabaha ugu waaweyn ee qofka bini'aadamku wax ku jeclaan karo يعني labada caqabadood ee maanta dadka Soomaalida haysta waxa weeye yani systemku ugu waaweynaa ee dadka Soomaalida haysto ah sidee ayaa wax loo jeclaan karaa toddobaadkii hal mar ay barnaamijkan ka daawataan halkani waxaan u mahadnaqayaa kamaradiyahankeena caanka Xamse shaaci oo suuq ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee barnaamijyada inta badan ka soo gudbiya sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa farsamayaqaanka isaguna oo ka mid ah mas'uuliyiintan kamarada inoo duubayay waan iyo macaan Cabdilaahi Qoorgaaba dhamaantiin iyo dhamaantaydo waxaan iga tegnaa sidaas iyo salaamu alaykum wa rahmatullahi